بسم الله الرحمن الرحيم هبا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararka Soomaalida ee HBN qodobada caawa wararkana ugu waaweyn waxa kamid ah Pakistan oo la sheegay inay ka fikirayso ciidamaha ay u soo dirto Soomaaliya iyadoo uu waji cusub oo galay xiriirka labada dal qaramada midoobay oo ka digtay xaaladda gaajo ee sii xumaanaysa Soomaaliya iyadoo oo sabab ay u yihiin colaadaha iyo qiimaha nolosha aasaasiga ah oo isbedel weyn laga dareemayo sidoo kale hay'adda ayaa ka digtay in colaaduhu yihiin sababta ugu weyn ee keenta gaajada mararka qaar loo adeegsado hub ahaan waxaana meelaha kale ee la xusay ku jira Falastiin, Suudaan iyo Yemen. Warbaahin ka soo baxaysa iska horimaado weerar oo ciidamada Kenya ay sheegeen inay la galeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay xadka Soomaaliya iyo xukuumadda Somaliland oo maanta shaacisay imtixaanka dugsiyada sare ee Somaliland ayna ku dhaceen tiradii ugu yarayd sanadkan. Dhammaan qodobadan oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo wixii nagu soo kordha barnaamijka wararka Soomaalida. Soo dhawaada mar kale daawadayaal wararkeena caawa waxaan ku bilaabaynaa Pakistan ayaa la sheegay in ay ka fikirayso ciidamada ay u soo dirto Soomaaliya iyadoo uu waji cusub oo galay xiriirka labada dawladood. wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda Pakistan ay ka fikirayso inay ciidamo u soo dirto Soomaaliya xilli labada dal ay sii ballaarinayaan iskaashiga dhinaca difaaca iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. qorshahan la sheegay ayaa daba socda booqashooyin heerar sare ah iyo heshiisyo difaac oo dhawaan dhexmaray Muqdisho iyo Islamabad. Pakistan ayaa la filayaa inay gacan ka geysato horumarinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan awoodda ciidamada dhulka iyo cirka. weli ma cadda tirada ciidamada Pakistan ee Soomaaliya imaan kara iyo in ay si toos ah uga qayb qaadan doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo Daesh ama in ay doorkoodu ku koobnaan doono tababaridda la talinta iyo tayeynta ciidamada Soomaaliya. sidoo kale wararkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaan muujiyay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay qaado mas'uuliyadda weyn oo ku saabsan ammaanka dalkeeda isagoo ciidamada midowga Afrika uga mahad celiyay sanadihii ay Soomaaliya ka shaqeynayeen xilli uu socdo kala guurka howlgalka AUSM. howlgalka midowga Afrika ee AUSM ayaa wajahaya caqabado dhaqaale oo culus iyadoo aanu weli la hubin maalgelintiisa wixii ka dambeeyay sanadkan 2026 taasi oo dhalisay su'aal ku saabsan mustaqbalka joogitaanka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya. arrimahan ayaa sidoo kale waxa ay ku soo beegmayaan kadib heshiis difaac oo dhawaan dhexmaray Pakistan, Turkiga iyo Sacuudi Carabiya. Turkiga ayaa horay uga mid ahaa saaxiibada ugu muhiimsan ee Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo difaaca waxaana uu Muqdisho ku leeyahay xarunta tababarka ciidamada ee Turkisom oo ah xaruntiisa tababarada military ee ugu weyn ee dibadda. qorshaha Pakistan ayaa la rumaysan yahay inuu ku saleysan yahay iskaashi laba geesood ah oo ay la leedahay Soomaaliya. warar aan weli la xaqiijin ayaa sidoo kale sheegaya in Sacuudi Carabiya ay gacan dhaqaale ka geysan karto qorshahan inkasta oo aan weli si rasmi ah loo shaacin heshiiska noocaasi ah. ilaa hadda dawladda Soomaaliya ama dawladaha Soomaaliya iyo Pakistan midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin in ciidamo Pakistan ah loo soo dirayo Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay xaaladda gaajo ee sii xumaanaysa Soomaaliya iyadoo oo sababtu ay tahay sida la sheegay colaadaha iyo qiimaha nolosha aasaasiga ah oo isbedel weyn laga dareemayo. hay'adda barnaamijka cuntada qaramada midoobay u qaabilsan ee WFP ayaa ka digtay in Soomaaliya ay galayso marxalad cusub oo halis ah oo dhanka gaajada ah iyadoo oo abaarta, colaadaha, barakaca hoos u dhaca gargaarka bini'aadantinimo iyo kororka qiimaha cuntada iyo shidaalka ay si wada jir ah u sii xumaanayaan wana sii darayaan xaaladda nololeed ee qoysaska Soomaaliyeed. WFP ayaa sheegtay in ku dhawaad 3 meelood meel dadka Soomaaliya oo u dhiganta qiyaastii 6 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo ba'an ama xaalad ka sii daran. warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo ay ku jiraan heerar gaajo oo degdega dadkaasi iyadoo oo qoysas badan ay adeegsanayaan dhammaan fursadaha u haray si ay u noolaadaan. sidoo kale Soomaaliya weli waxa ay ka mid tahay dalalka dunida ee sida weyn u wajahaya nafaqo xumada sida ay sheegtay warbixintu. WFP ayaa saadaalisay in sanadkan 2026 ay nafaqo xumo ba'an ay la kulmi doonaan ku dhawaad 1.88 milyan oo carruur ah oo ay ku jiraan carruurta 5 sano ka yar halka ku dhawaad 493 kun oo carruur ah ay u baahnaan doonaan daaweyn ku saabsan nafaqo xumo daran. WFP ayaa sheegtay in adeegyada caafimaadka ama nafaqa darrada
nafbadbaadinta ay yihiin kuwo aad u xadidan iyada oo barnaamijyadii looga hortegi lahaa nafaqo xumada laga jaray qaybo badan oo dalka ah. hay-addu waxa ay ka digtay in hoos u dhaca adeegyadaasi uu si gaar ah khatar ugu yahay haweenka iyo carruurta nugul. dhanka kale WFP ayaa sheegtay in ay bilowday qorshaheeda istiraatiijiga ah ee Soomaaliya 2026-2030 kaasi oo diiradda saaraya badbaadinta nolosha, xoojinta isku filnaanshiyaha, taageerada xalal ay dowladdu hogaaminayso iyo dhisidda adkaysiga bulshada. qorshahan ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu hormarinayo amniga cuntada, xalal waara oo lagu yaraynayo gaajada Soomaaliya ka jirta. isla arrimahan sidoo kale hay-adda ayaa waxa ay ka digtay in colaaduhu ay yihiin sababta ugu weyn ee keenta gaajada, mararka qaarkood loo adeegsado hub ahaan, waxaana meelaha kale ay saamaysa xaaladaasi ka mid ah Falastiin, Suudaan iyo Yemen. mas-uuliyiinta barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee WFP ayaa sheegay in colaadaha ay yihiin sababta ugu weyn ee keenta gaajada adduunka, iyada oo xustay in gaajada mararka qaar loo adeegsado hub ahaan. WFP ayaa digniin ku bixisay in wareegga u dhexeeya colaadaha iyo gaajada uu sii xoogaysanayo. agaasimaha ku-meel gaarka ah ee WFP Carles Kawaya waxa uu sheegay in calaamadaha digniintu ay ka muuqdaan dalal ay ka mid yihiin Suudaan, Soomaaliya, Yemen iyo Falastiin oo laga xusay marinka Gaza, halkaasi oo qoysas badan ay wajahayaan xaalado adag. waxa uu sheegay in dadka mararka ay waayaan cunto ay wajahayaan doorashooyin adag oo ay ka mid yihiin gaajo, barakac ama kacdoon. Carleska waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda Soomaaliya si toos ah ay u arkay toddobaadkii hore, isagoo tilmaamay in qoysaska ay colaadaha iyo abaaruhu barakiciyeen ay mar kale ay wajahayaan gaajo aad u daran kadib markii uu booqasho ku yimid Soomaaliya. waxa uu sheegay in sugidda ku dhawaaqista macaluul ay tahay fashil weyn oo dhanka waajibaadka. sidoo kale WFP ayaa ka digtay in carqaladaha ka dhasha colaadaha ee ku yimaada shidaalka, barakicinta, badarka ama cuntada, maraakiibta iyo wadooyinka gargaarka ay kordhin karaan qiimaha cuntada, yarayn karaan wax soo saarka beeraha, isla markaasina saameyn ku yeelan karaan dadka kumayaalka milyan ah oo ay colaaduhu saameeyeen. hay-addu waxay ugu baaqday golaha ammaanka iyo dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay inay ilaaliyaan shacabka iyo sidoo kale shaqaalaha gargaarka, fududeeyaan gaarsiinta cuntada iyo gargaarka bini'aadantinimo, isla markaasina maalgelin iyo xalal siyaasadeed u helaan colaadaha. WFP waxa ay sheegtay in hay-adaha gargaarku aysan bedeli karnin tallaabada siyaasadeed ee loo baahan yahay si looga hortago gaajada loona gaaro nabad iyo xasilooni. waa hagaag markaane faahfaahin ayaa ka soo baxaysa iska horimaad weeraro oo ciidamada Kenya ay sheegeen in la galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaasi oo ka dhacay xadka Soomaaliya. wararka ka imaanaya gobolka ama deegaanka Konton ee gobolka Wajeer oo ku dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan militariga Kenya ay iska caabin kooban ay la kala kulmeen maleeshiyaad la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. maleeshiyaadkan ayaa warbaahinta dalkaasi waxay ku sheegeen in ay rasaas ku fureen ciidamada, kuwaasi oo si degdeg ah uga jawaabay una qasbay kooxdii weerarka soo qaaday in ay dib ay ugu soo laabato dhanka xuduudda Soomaaliya. saraakiisha Kenya ayaa sheegay in dhammaan askartii roondada ku jirtay ay bad qabaan, isla markaasina aan wax khasaare ah laga soo sheegin. weerarka ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Sabtidii toddobaadkan xilli ciidamada Kenya ay roonda ay ka wadeen deegaanka. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay kordheen walacyada amni ee ka jira xuduudda waqooyi ee Kenya, iyadoo oo weeraro loo adeegsanayo ama ka imaanaya Al-Shabaab ay dhowaan ka dhaceen Mandera, Garissa iyo Lamu. saraakiisha ammaanka ayaa ka digaya in weeraradan ay noqon karaan kuwa lagu tijaabinayo awoodda ciidamada, iyada oo laga cabsi qabo weeraro waaweyn oo lagu qaado xarumaha ammaanka Kenya. dabayaaqadii bishii Julaayo ee sanadkan 2026 6 askari oo Kenyan ah ayaa lagu dilay gobolka Mandera kadib markii gaari ay wateen ay haleeshay miino nooca dhulka lagu aasaa, waxaana xigay weerar ay ku qaadeen maleeshiyaad looga shakisan yahay kooxda Al-Shabaab. Kenya ayaa ciidamada u soo dirtay Soomaaliya sanadkii 2011 kadib weeraro iyo afduubyo xuduudda ka dhacay oo halis geliyay sida la tilmaamay amniga dalkaasi. ugu dambeyntiina xukuumadda Somaliland ayaa maanta waxay shaacisay natiijada imtixaanka dugsiyada sare, taasi oo ay ku dhaceen tiradii ugu yarayd
wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee deegaanadooda iyadoo oo tirada ardayda ku dhacday imtixaanka dugsiyada sare ay noqotay mid aad u yar marka loo eego tirada guud ee imtixaanka gashay Somaliland sida ay muujinayso shaxda guud ee ardayda gashay imtixaanka dugsiyada sare ama fasalka 12aad ayaa ahayd 16,078 arday waxaana ku baasayay 16,051 arday halka ay ku dhaceen 27 arday taasi oo u dhiganta sida la tilmaamay qiyaastii 2.2% wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa shaacisay imtixaanka iyo qaabka ay u dhaceen ardada iyo inta ku baastay ee ardayda dugsiyada sare iyo kuwa dhexaba ama foomfoorka loo yaqaano waxay noqotay 16,051 arday tirada aan gudbin waxay noqotay 20 arday tirada ka maqnaatay imtixaanka fadhiisan inada ku yimid awgoodna waxay ahayd 41 arday dhammaan ardayda guulaystay fasalada afraad hambalyo hadaynu soo noqono dugsiyada hoose dhexe ee fasalada sideedaad waxaa fadhiistay 26,116 arday 14,407 ay ahayd inamo 17,709 ay noqotay hablo ka gudubtay waa 25,860 arday ayaa ka gudbay marxaladda dugsiyada hoose dhexe ee fasalada sideedaad gudbay dugsiyada sare iyagana waxaan leenahay balyo sidoo kale wasaaradda ayaa waxay sheegtay in dhammaan ardaydii farsamada gacanta ee sanadkan u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ay wada baaseen iyada oo aanu la diiwaan gelinin arday ku dhacay qaybtaas Somaliland waxa ay sheegtay in imtixaanka sanadkani uu ahaa mid si weyn ay wasaaraddu u soo qaban qaabisay kadib markii ay sheegtay in ardayda ay heleen fursado muhiim ah diyaarinta iskuulada ay dhigtaan ay kaalin ka qaateen waayahay qodobkaas ayaa ugu dambeeyay daawadayaal barnaamijkii wararka Soomaalida oo idinkaga imaanayay stuudiyaha labaad ee HBN Muqdisho wararkeena iyo barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogaggeena kala duwan Facebook, YouTube, Twitter iyo Telegram boggeena internetka ee hbnonlinetv.com wararkeena ayaad ka akhrisan kartaan wayna kulan dambe nabadgelyo